الرحيم مروين مدن يا وسلامتي سلام كدب waxaan u istaagay meeshaan inaan naho Jubbaland hambalyo Jubbaland hambalyo Jubbaland hambalyo jaagar uu ka xawaalay ragga wali waxa la yiraahdaa Jubbaland hambalyo Jubbaland hambalyo waxaan ilaahay uga baryaynaa maamulka cusub ee Jubbaland inay noqdaan kuwii hanta wixii shacabkooda u doorteen waxaan halkaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland yaan hambalyo halkaan uga dirayaa diiran oo kaliya laaba waxaana ballan qaadaynaa haddaanu nahay shacabka reer Jubbaland inaan garab taagnaano si ay u gutaan xilkooda intaa kadib waxaan rabaa dadka reer Jubbaland ee halkaan fadhiya inaan u sheego barnaamijka sida looga arko Muqdisho ma aha dadka Soomaaliyeedna ma fiiriyaan wixii shalay la soo maray barnaamijkan wuxuu soo socday 4 sannadood iyo 7 bilood bishaana u ah 7 bilood 4 sano iyo 7 bilood barnaamijkan dawladda Soomaaliyeed ee ku meel gaarka ah yaa ogolaatay in la sameeyo Sheekh Shariif yaa ogolaaday in la sameeyo asagaa ogolaaday in la xareeyo ciidan asagaa ogolaaday in Jubbaland laga xoreeyo shabaab asagaa ogolaaday in maamul goboleed loo sameeyo intaa kadib barnaamijku markii uu marayay muddo 1 sano iyo badha ayaa madaxweyne Sheekh Shariif isbedelay oo ay u sheegeen kuwa si xun wax u sheega inuusan barnaamijkaas ahayn mid sax ama uusan ahayn mid asaga hadhow saacidi doono nasiib xumo Sheekh Shariif 1 sano iyo badh buu barnaamijkii bedelay oo uu damcay inuu wareejiyo barnaamijkii oo Jubbaland shabaab sii haysto ciidamadii loo xareeyayna xamar la geeyo arrintaas raggii Jubbaland barnaamijkeeda loo abaabulay yaa ka diiday Sheekh Shariif wayna ka dagaalameen maalinkaa wixii ka dambeeyeyna waxay ahayd carab iyo wilbay taagneed barnaamijka Jubbaland waxaan ku faraxsanahay 15 May in Jubbaland ay dooratay madaxweyne Axmed Maxamed Sheekh Islaam dadba waxay dhahaan Axmed xagee ka yimid Axmed wuxuu ahaa Axmed bariya kuma imaanin Jubbaland wuxuu ku yimid xabad beerta sheegay ee dadka Soomaaliyeed gowrici jiray yuu xabad intuu u qaatay ku xoreeyay Kismaayo bariya kuma imaanin Axmed wuu dagaalamay naftiisu huray markii u dambeysay Axmed 9 xabadood baa ku dhacay ninkii ogaa uu ogyahay xabsi buu galay intaasoo dhibaato la soo kulmay markuu soo noqdayna xabadii uu halkii ka bilaabay maantana wuxuu ku noqday madaxweynaha Jubbaland state-ka Jubbaland uu madaxweyne ka yahay waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Jubbaland annagu ma diidanin Soomaalinimo annaga Soomaali hormuud ah annaga Soomaalinimada daydayna barnaamijkan asalkiisuna markii aanu bilaabaynay wuxuu ahaa in la baadi doono ummadda Soomaaliyeed ee luntay in la baadi doono waxaana u arkaynay bayskii koowaad ee ummadda Soomaaliyeed ay ka tuuli lahayd inay Jubbaland tahay yaa raggii barnaamijkan waday qorshahoodu ahaa haddana yahay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenkuna ku shaqaynaya Soomaalinimada nin marti looga yahay ma jirto waanu nahay waana ahaan doonaa Soomaali laakiin waxaan yeeraynaa dowladda Soomaaliyeed u sheegaynaa Kismaayo shabaab u banayn ma yeelayno shabaab inaan Kismaayo u banayn ma yeelayno haddii lagu fikirayo dowladda Muqdisho joogto ku fikiraysa arrinta ma yeelayno waxaad la socotaan xildhibaano Soomaaliyeed inay geeyeen baarlamaanka mooshin inay geeyeen ay leeyihiin dowladda Kenya ha ka baxdo meesha oo dowladda Kenya maxay u ximaytay Uganda baxdo hadday Kenya baxdo ma shabaab ha qabsadaa Kismaayo hadday Kenya ku baxaan bahalkii nimanka la yidhaahdo Uganda isku way baxayaan Soomaaliya shabaab baa la wareegay
madaxweynaha marka taasuu ka shaqeynaya waxaa kale oo rabaa inaan u sheego dadka reer Jubbaland madaxweynaha waxaa doortay qabiilooyin Soomaaliyeed baa doortay ilaa hadda madaxweynuhu wax election intii dhacay uu madaxweyne ku noqday ma jirto qabiilooyin Soomaaliyeed oo la soo ururiyay yaa doortay qabiilooyinkii Soomaaliyeed qaar ka mid ah inuu beer daajiyo qaarna uu dhaho shabaabku haydan xukuum miyaynu ka yeelnaa ma yeeli karo miyaan yeelnaa dastuurkii Soomaali ku heshiisay inuu bedelo madaxweynuhu ma yeeli karo madaxweynuhu dastuurkii buu bedelay sidaa darteed waxaanu u diraynaa fariina madaxweyne ka noqo bedelka dastuurka madaxweyne ka noqo diidmada Jubbaland madaxweyne ka noqo Puntland dhibaatada aad ku hayso madaxweyne kuwa ku doonayana ha eegin kuwa aan ku doonayn gacanta u taag anu waxaan leeyahay waqtigu yar yahay aad iyo aad baan uga xumahay in maanta madaxweyne Soomaaliyeed oo la socda Soomaaliya dhibaatadii ay soo martay 20 sano Soomaaliya dhibaatadii gaadhay la socda inuu maanta doonayo dad Soomaaliyeed himiladooda iyo hankooda iyo maamulkooda iyo nabadooda ay samaysteen inuu dumiyo aad iyo aad baan uga xumahay waxaan leeyahay madaxweyne waxaan raalli ka nahay in Soomaali federaalka ay ku heshiisay ay ku dhaqanto haddii federaalka lagu dhaqmi waayo ninna madaxweyne ma ahaanayo nin walba tuuladiisu joogi doonaa waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo reer Jubbaland ha guulaystaan reer Jubbaland ha guulaystaan reer Jubbaland ha guulaystaan midnimada Soomaaliya ha adkaato guulaysta idinkuna nala fadhiisto